dad rabay inay ramadaankan soomaan baa maalmo dhow dhintay shala subax ayaa nin la ii soo sheegay aan aad u aqaanay khayrkana ka shaqayn jiray masjid aan dhisahayay oo dhismihiisu uu socday ayuu ila soo hadlay markaasuu wuxuu yiri masaajidkaas labada dabaq ah markii la gaaro mutureelka dhammaantiis anaa bixinahaya ii soo sheeg wali lama gaarin shala subax buu dhintay isagoo go'aan ka qaatay oo raba inuu bixiyo ayuu shala subax dhintay adigii oo aan iska jirin ayay si kadiisa kuugu imaan rag baa dabaqya dhisay aad u qurux badan hayagoo furitaankoodii u diyaar garoobahaya iyo wixii lagu gogli lahaa sidii lagu qurxin lahaa dhismihii uu dhammaaday koob shaaha aan ka cabin baa laga qabtay oo ay ka tageen badanaa nin qorsho u degsanaa oo qorshihiisa u kala duwanaa oo ay geeridu ku soo xaadirtay ama koronaha ugu soo dhuunto ama magac kale ha ugu yimaado ama kansar ha lagu magacaabo ama xabad baa ku dhacday ama qarax si kastaba ha ahaato asbaabaha lagu dhimanayaa way kala duwan yihiin dhimashadu waa waaxid qul yatawafaakum malakul mawt alladhi wukila bikum qof dhaafaya ma jiro malagii la idin xil saaray baa dhammaan idin oofsanay ilaahay uu wakiishay subxaanahu wa ta'ala xaaladdu maadaama sidaas ay tahay maanta waxaa kula gudboon go'aanna gaartid qaraabadii aad goysay xariiri oo raadi saaxiibadii waxay idin dhex mareen cafiska dalab iskana cafi tanaazul aan caadi ahayn oo aan lagugu aqoon la imow deeqsinimo aan lagugu aqoon la imow didaal aan horay lagugu aqoon la imow ilaahay oga run sheeg camalkan mubaaraga ah oo weyninka badan si ilaahay abwaabta khayrka oo dhan inoogu furo nabigu wuxuu yidhi man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dembihi qofkii istaaga ramadaanka waa taraawiixdii man saama ramadaan qofkii sooma maalinkiisa man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dembihi marka waxaa lagu dareensiinayaa habeenba habeenada uu ka sii dambeeyo siduu u dambeeyo u socdo laylatul qadrigi waxaa la dhigay 10ka dambe didaalkaagu waa sii labalaamaya marka waxaa ku tala gashaa sanadkan kii hore inuusan kuula mid noqon xagga quraan akhriska laalaab xagga salaadaha badso xagga istighfaarta iyo toobadkeenka xagga sadaqada aad bixinaysid xagga cafiska aad samaynaysid ha kaaga bedelnaado ramadaankii hore